ciidamada ammaanka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa maanta gacanta ku dhigay Hibe Maxamed Xasan oo shalay qoyskeedu waayeen iyadoo markii dambe u sheegtay in afduub ahaan loogu haysto meel mugdi ah. ciidamada ayaa Hibe ka reebay gaari ka yimid magaalada Muqdisho oo safar ah sida saraakiisha amnigu ay ku xaqiijiyeen baaritaanada hordhaca ah ee la sameeyay gelinkii hore ee maanta. taliska laamaha amniga ee degmada Gurceel sida booliiska iyo nabad sugidda oo uu weheliyo maamulka degmada ayaa waxa ay si wadajir ah caawa u shaaciyeen in Hibe oo kiiskeeda baaritaan dheer lagu sameeyay uu cadeynayo in aysan jirin wax afduub ah oo gabadhan looga soo waday magaalada Muqdisho balse iyadu ay soo aaday xubno ehelkeeda kamid ah oo degan magaalada Gurceel. taliyaha booliiska degmada Gurceel Dhame Cusmaan Cali Hudey oo goordhow warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay baaritaanada ay sameeyeen laamaha amniga. ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee degmada Gurceel maamulka dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee degmada Gurceel ee maamulka dowlad goboleedka Galmudug waxaan rabnaa halkaan inaan ka sheegno kana cadeyno Hibe Maxamed Xasan oo maalmahan baraha bulshada la isla dhex marayay in laga soo aftuubay magaalada Muqdisho ayaan saakay 5:40 ayaan gacanta ku soo dhignay. markii aan gacanta ku dhignay baaritaan badan kadib waxaan ku guuleysanay Hibe in aan baaritaankii ay noogu cadeyso in cid soo aftuubtay aysan jirinin oo ay xamar iyadoo xor ah ay ka soo tagtay soona aatay Gurceel oo ay tagay yihiin dad familkeeda ah. intaa kadib in uu jiro problem familka xamar ah Hibe waxay gaariga ka soo raacday magaalada Muqdisho iskoyska baar ubax xafiiska Caamir Cismaan Macallin marka lacag $50 ay bixiday halkaas ay gaariga ka soo raacday sidaas ayay ku timid degmada Gurceel. baaritaankiina waxay noogu cadeysay inaysan jirinin bataatanba in cid soo aftuubtay oo aftuub ku soo wadatay inaysan jirinin cid aftuubtay iyadoo xor ahayd xakana ay family uga soo tagtay xoogaa barbalam jira halkaana ay maaragtay family u soo aaday iyo barasho intaas ay noo cadeyday. waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan ahaladoodii ahalkii ay maaragtay ka soo jeetay iyo waalidkiiba inaan u cadeyno in gabadhiina nabad qabto sidaasna ay ku timid ayaan rabnaa inaan u cadeyno. Hibe Maxamed Xasan oo ah gabadha la la'aa ee ciidamada amniga ee degmada Gurceel ay maanta heleen ayaa iyadu faahfaahin ka bixisay ujeedada safarkeeda ay kaga soo baxday magaalada Muqdisho iyo waxa ka jira wararka lagu baahiyay baraha bulshada. aniga magacayga ah Hibe Maxamed Xasan oo ku soo baxay baar ubax shalay marka ku soo baxay imaado Gurceel marka imaaday oo marka Gurceel imaado xornimo ah waxaa imaaday bis ana soo socda waxaa telefoonka jitay markaas too isoo wacda markaas saacada Gurceel toogo kabacdin ciidamada booliiska agtooda imaada agtooda ku nabad gale. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Gurceel Cabdishakuur Axmed Faarax oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ciidamada amniga ee degmada Gurceel kaga mahad celiyay howlgalkan ay sameeyeen isagoo carabka ku adkeeyay in amniga degmada Gurceel uu yahay mid si weyn loo xaqiijiyay. waxay isku dayayeen mar walba gaari walba oo soo mara degmada Gurceel ama soo gala kontaroolada degmada inay mataqaanaa xaqiijiyaan amnigiisa iyo cidda saaran iyo meesha uu socdo. ugu dambeynna 5:40 daqiiqo ah ayaa lagu guuleystay Hibe oo iyadu xor ah oo mataqaanaa si free uga soo tagtay magaalada Muqdisho gaarna soo raacday ciidamadu inay gacanta ku dhigaan degmada Gurceel. maamulka degmada Gurceel iyo saraakiisha amniga iyo ciidankuba waxay ku mashquulsanayeen sidii mataqaanaa amniga loo xaqiijin lahay isla markaana muwaadin kastoo Soomaaliyeed xorriyad oo ugu mar lahay degmada Gurceel iyo mataqaanaa laamigaasi bulshada ay ku safarto. degmada Gurceel waxaan leenahay way bad qabtaa way wanaagsan tahay amni ahaan waa la isku halay karaa. dadka baraha bulshada ku qoraya Gurceel baa gabar loo afduubtay waxaan xaqiijinaynaa Gurceelna gabar loo afduuban loona afduuba karin loona afduuba doonin hadda kadib inta ciidamada booliiska
degmada Gurceel iyo ciidamada nabad sugidda iyo maamulka degmadu ay nool yihiin isla markaana ay ka shaqeynayaan sugidda amniga. saraakiisha amniga degmada Gurceel ayaa Hibe Maxamed Xasan ku wareejiyay qoyskeeda kuwaasi oo xilli hore oo maanta ahba lagu wargeliyay in gabadhooda la helay. Cabdullaahi Warsamo Roble, Somali News TV, Gurceel.